doorashooyin toos ah saddex doorasho oo toos ah oo laga yaabo almost shantii sanadoodba khasabayteen saddex doorasho la galo waliba afar noqonaysa doorashooyinka ururada marka lagu sii daro sidaynu doorashooyinka ka yeelaa kharash badan bay nagu haysaa iskhilaaf iyo isku horimaad iyo kacdoono iyo marka qaarkood jiritaankeenaba khatar kala sidee baynu doorashooyinka ka yeelaa ma midayn karnaa oo doorasho guud ma qaban karnaa qaarkood ma laga dhigi karaa doorashooyin toos ah inta kale ma laga dhigi karaa doorashooyin dadban power sharingka siyaabaha matala xaaladaha iyo nafsayno taa lafteeduna iyana waa qodobka koobaad oo waliba halka hadaan sii dul taago 2007 wixii ka dambeeyay waxa abuurmay dhaqan kororsiimada imika lafteeda aadka looga hadlayay kororsiimooyinkaasi dhaawac weyn bay wadanka ka tagaan waxay nagu dambeysay imika xasuusanahay labadii sanadood oo u dambeysay goboladii wadanka qaybo kamid ah baa lagu waayay marka halka maxaynu iyana ka qaban karnaa iyana waxaan isleeyahay odoraskeeda iyo in wax laga qabtaa waxay ku xidhantay Soomaaliland in la odorasho 5 sanadood ama 10 sanadood soo socda qodobka saddexaad ee aan isleeyahay 10 sanadood soo socda Soomaaliland odoraskeedu ku xidhan waxa weeyaan Soomaaliland iyo mucaamilka adduunyada dunida sideen wax wala qabsanaa waa run arinta sovereignty-ga caqabad bay inagu tahay laakiin iyadoo sida ay tahay sovereignty la'aan wax ma qabsan karnaa sovereignty-ga lafteeda ama aqoonsiga laftiisa ama statehood-keena soo dhamaystirmo maxay tahay inaanu qabanno isla inta aynu dadaalka ku jirno sidee baynu isaga ilaalinaa cilaaqaadka ama xidhiidhada aan la odorsin ee khatar badan ku jiraan laga yaabo marka hore inay u muuqdaan wax muhiim ah ama wax fiican laakiin khatar badan ku jiraan sidoo kale sidee baynu u soo jiidanaa cilaaqaado aynu odorsnay aan lagu degdegin mar quraatoon aynaan ku baraarugin laakiin odoros badan oo dad khubara ah dadka wadanka dadka structureska kala duwan ee dawladda lagala tashaday finally iyadoo la isla og yahay oo go'aan informed ah go'aan natiijada ka dhalanaysa aad loo odorsay laga qaatay maxaynu ka yeelnaa arintaas oo iyana hoos imanaysa Soomaaliland iyo adduunyada iyo gobolkaba waxaynu ka yeelaynaa saddexda qodob waxaan isleeyahay sida hadba loo maamulo sida loo fahmo sida looga jawaab celiyaa waxay ku xidhantay Soomaaliland halka ay ku dambeynayso 10 sanadood soo socda